koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadaha akhyaaray weydin salaama minaad salaan rabtiin waa kaa qaadna cabdullow inkastoo warkaagu baxayn war dagoonka kanow baa yama bakeeri oo kaheli may gundhow yakiinjeeyalare abdullo oo waa idin salaameed kaheli mayn eedayaasa horta saaxiibayaalow anigu safaraan u socdaa dadkuna mugow safraayo waa inuu iscafiyo isna maca salaameeyo war cabdullow ma tahriibaysaa mayay masaafu u socdaa war safaran aniga ka warqabina muxuu ahay ambaray muuse bixaa u yeedhay macbuudka iyo maganti baridee ilaahow owsan ii yeeri ee iga dhegaysadha intaan war how muddaan iska hor muuqanne maca salaamo kalamaan muddaan iska hor muuqanne maca salaamo kalamaan haye war ma baskii aakhirad raacaysaa shakfir oo yur adaa dayuurad aakhira hadda saarane war qofkii wadkiisu galaa noolaan maayee diyaarad weyn oo induruusiya leedahay oo 250 qofoodoo baasjeeru saaran tahay badday kula dhacday war diyaaradna maxaa badda ka jira ma markabaa mise waa doon war diyaaradii rug irag luwaay iyo idadkii saaranaayeen malaysiya lahayti war diyaaraddu meeshii ku qaraxday waa dalka ingiriiska adiga ma krisboy ka ahay war ma haysiine diyaarad annagu ma lihin danteena aan ka hadalne kir Somali Airline awda diyaaradda Somali Airline ada sheegaas garab jeebaadi daashkiinka dhisinyo wariya war diyaaradii balcad dusheeda ku qaraxday daala Airline ay ahayd ilaahay baana badbaadiyay dadkii saaraaba diyaarad ma lihin maxaa waay duqa dariishada ka baxayna ee geedka ku korgubta war adeer yaalo warkayga dhageysta arintii maamul goboleedyada cirkaas ayay isku shareertay awalaysan dhulka joogin madaxweyne kasta ku xigeenkiisa ayaa ka daba hadlay waxaad wadiinna ma ogolin ayay dhaheen madaxweyne ku xigeenka Puntland wuxuu yiri go'aankii ay ka soo saareen Garowe riyo maalmeed ayuu ahaa marka maalin lama riyoode raggu habeenkaas saxdeen buu yiri oramo inta faaraha Soomaalida ka baxdid annaga ka ogolsanayna dhageyso ra'iisul wasaarihii Galmudug Dr. Sheikh Shaakir wuxuu yiri adeerkay xaaf xaaladda ku xune gobasha madaxweynuhu dhiga waan ka qayb galaynaa haddaan reer Galmudugnahay nimeeya oo bay dhawajana isan goradaasan gobolka koonfur galbeed lileeyti ku teegan haddii aan siin ka sheekoy dhiga farta galadaasan markuu koray baal hubli leele la saadi bulug buruf wiinta madiidiya seetay walnas ka saadi boorsiyaal oo samsanaay leerayo tinta hayti abu bidaar ka jiro la jeysidi musharahiin weyn ana wal jeysidi ko fiigiir bay dhawreed may ka aalay ina gogoliya dhinigo la ku duuwahay markii sinadku may ba ka aalay gogol hayna gadbanka yaalino ninguri doono ka aali war waxa kala ogtahay male isbeesa bulutika meesha ka socod ambaray buruti alka TV in iska saadaan artay war ma ya hargeysan ila bedela ugu dhax naw war hargeysa maxaa ku dhuudan geynaya oo maan xaqo u dhanku ku qabaha war kismaayo waa ka ergay qaramada midooba tagay Ahmed Madoobana waa kulmeen baa leeyri odaga asagana uu magacadkaaya leeyri hogaamiyaasha Geedland marka yaa warkaaya odaga boolma laga soo dabciyay waa loo dhuujiyay maando ordaga qaramada midoobana intuu ka yimid war dawladda Mareykanka war weyn baa ka soo baxay waxay dhaheen waan soo dhaweynaynaa doorashada madaxtinimo ee koonfur galbeed musharaxa si gaar ah u wadanana ma jiro balse dadka waan kala naqan ayay dhaheen war doorashada xilligeedii waa dhow yahay waa maxay waa soo dhaweynaynaa kale xilligeedii laga hormari ma doorashada war Galmudug doorasho sharafta ka qaadeen ma qusaysay ka baxnayo war waxaan idin su'aalayaa bay dhabo goorma Mareykanka iyo Soomaalidu ku shirkoodeen war Soomaalida Soomaali Mareykan ahniyo waa dhunsan tahay wal baratu gabtu walaari Mareykanka wal baradiya gaban bay dhaw hata ka hor buusha ka dhawayni waanaad afkiije kala dawani may barnay ka saasana bush welcome boy yerni marka dhahdeen bush welcome boy Soomaalida waxay naqata wada buul iyo bac iyo bush iyo kuwa bad ku dhamaaday waraw Shariif Xasan saraakiishii madaxtooyada shaqadu ka wada joojiyay madaxtooyadana lama soo gali karo iyo amar la'aan kulay odagu waa shakiyay ariya madaxtooyada inta ka galna xaq uga bixina xagga ka soo galna intuu uga bixina Shariif naga dhaxsho waa kaas Abdul may ba sheego haytay mar Cornel Tafasa maamow luwaya sheego haytay ma hatama alyaada haddii madaxdii maamul goboleedyadu iska daba qayliyeen Cabdullaahi Sheekh Xasan afayanimadii ma laga qaaday mise wali waa hadlaa
xaadu hadli weyda cabdulaahi lagu cadaabi maayo war kalaan idin hayaa war kale geedkan ararsanayne gabaadkiiyo dugsiga ulgaruuna ka raadso geela noogu ilaali goor horaan ku heshiinay gunta haddaad ka jarayso adaa geeri ku fiican guriga habe amiin dhammaanteen mid markaan ballanno yaa mid kale naga biqleeyaayoo ma og tahay wax ma biirsanee waa beddelanaa waa beddelana maad beeraha falatid xaad la tuugtantaa war biyo male meesha keligaa la qotaa keliga korkaagu ha qaacee ma og tahay bilow aadmiyow wixii naloo uumay iyo meesha aan ku ambanniyo dhaga adaygeennu isma laha amuuraha socdana waan ka aragnay ilaahaynimo caymin rabo ciiduma soo tuugo cidduu cidhib iyo saangoynayana ciidan uma doonto somalilan inuu intiraaf siiyo kuma cuslaalayso aniguna inaan soo celshaa carabka ii saaran cadowsana ninku caanawaa oo cantafuud war wasiirka maaliyaddu wuxuu yidhi miisaaniyaddii golaha wasiirada waa ka ansixinnay intii horena waa ka badatay buu yidhi gudaha iyo dibaddaba beesadu waa ka barakootuu yidhi hadda bayle wuxuu yidhi boorsooyinkii la xadi jiray waa xajinnay goor dhowna waddanku barwaaquu noqonayaa baarlamaankaan nagaynaynaa miisaaniyad been badanna boorsooyin hajine madiusley baydhow binaanjehan beesada kuwadwada ma eeyin oo ma barbaraarnay bay qaadeen uga boorsoo dhinxijihayaan dadkina intay aadayaan warnimayo anugu waxaan ku talin lahaa geedkan kalamaan inaan madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda isugu yeerno oon ku heshiisiinno hanaga keenin oo hanaga keenayaan ciidanna qabsanina waradeena ha noo keenina maskaxdayada mulqaacad ku luuqayaane adee raali ah muuse biixi waa lagu soo daray anigu waxaan ku talin lahaay madaxda geedlan ay isugu keeneen gogasha madiusleye siyaasi meelika galafadooyaana goradeelankun iyo gorgoradan admug walba sheegay xay ahayd warnimaya weligeed soomaali mucaarada lagama waayo waryaada ha la heshiisiiyo idin yidhiye ma balaaye iyo dagaal iyo fidna rabtaan maxaa ku diidaysaa war mudug walka kooye wal heshiisiya unta ka aragdiin dhogaata teeganka aragayha waraa annagaa heshiisiinayna weligeenana dadka heshiisiin jirna waraa wax la heshiiyaa waa maskaxdayda mulqaacad ku naga tag tubaalu ha kaa kor kacde luuqayaane